نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. caawa insha allah waxaan ka hadli doonaa arrin la yiraahdo التعطيل. dadka badanaa waxay raacsiiyaan kelmadan sixr التعطيل, waxay yiraahdaan sixr التعطيل. sixr التعطيل waa wax sixir qof loo sameeyey oo laga hor istaago shay. marka badanaa dadku waxay u maleeyaan in oo sixirka kaliya waxa uu sameyn karo. taasna waa qalad. waxaad arkaysaa qofka markay isha ay ku dhacdo, markii la cuyuuno cayn ay ku dhacdo mise xasad uu ku dhaco, waxaad arkaysaa waxyaalaha oo la rabi inay ku hor istaagayo. مثلا hadduu rabo qofka inuu naag guursado oo il hadday ku dhacdo, waxaa dhici kartaa ishaas inay hor istaagto. mise xasad uu ku dhaco, la xasdo, xasadkaad waxaa dhici kartaa inuu hor istaago guurkaasi. mise sixir in loo sameeyo oo sixirkaa marka hor istaago guurkiisa. marka waxa waaye sixir التعطيل waa wax oo adiga lagaa hor istaagay oo la rabin inaad samayso. marka insha allah waxaan sixir kaliya ma aha, ilay noqon kartaa, waxay noqon kartaa xasaday noqon kartaa, waxayna noqon kartaa mas. marka insha allah waxaan rabnaa caawa mawduucan inaan hoos u galno biidnillahi alkariim, sidoo arrin waliba ay maaragtay in wax nagu noqoto si waadaxa insha allah. marka tactiilka lagu sheegayo mise arrintan qofka wax laga hor istaagayo guurka kaliya ma ah. waxaa dhici kartaa in lagu hor istaago waxbarashada, waxaa dhici kartaa in loogu hor istaago shaqadiis irsiq meesha ka soo gali lahaa. marka inkastoo maaragtay xasadka iyo isha maaragtay u badan yihiin dhinaca waxbarashada ee dhinaca shaqada, laakiin mararka qaarkood waxaa dhici kartaa qofka in sixir loo sameeyo siduu shaqada ugu istaagi lahaa, mise waxbarashadiis maaragtay oo cariir loogu gelin lahaa, waxbarashada uu dhib ku ah, waxbarasho ayaa dhib ku noqonaysa qofkaasi. laakiin waxaad arkaysaa isha iyo maska iyo xasadka daa'iman waxay wataan wax la yiraahdo khaadim. khaadimka la sheegayo waa jinni oo qofka maaragtay markay isha ay ku dhacdo, isha qofka markay ku dhacdo, darsiga hore aan soo qaadanay waan sheegnay in ilaahay subxaanahu wa tacaala qof waliba uu haalad uu siiyey. haaladaas waa wax laa taraahu alcayn almujarada, yacni qofka indhaha ma saari karo oo ma arki karo. waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyo oo anaga nuga hareersan. marka qofka isha ay ku dhacdo, waxay duleel u yeelaysaa haaladaas. haalada duleel markay u yeesho, waxaad arkaysaa jinniga inuu dhinacaas qofka oo ka soo galo. marka waxay ahayd ishi waxay kugu dhacday, maalan qofaa oo il kugu dhuftay oo markuu ku arkay maasha allah ilaahay irsiq ku siiyey, ishiyaa kugu dhacday. markuu jinniga soo galo, waxaa u caddaanaysa isha kugu dhacday inay ahayd il oo dhinaca irsiqa. marka wixii ayuu sii ziyaadinayaa, yacni wixii waa sii xumeynayaa, oo meel walba adiga maanta aad shaqo aad ka raadiso mise meel walba oo irsiq aad ka raadiso, waxaad arkaysaa inuu cariiri weyn kaa saaran yahay. insha allah waan hoos ayaan u gali doonaa, laakiin waxaan rabnaa inaan fahamno sida uu jinnigan ku soo galay jirka. isha hadday kugu dhacdo, dolool ayay haaladaada u yeelaysaa. haaladaada doleel markii uu yeesho, dhinaca ayuu ka soo galayaa jinniga jirkaaga. mise xasadaa kugu dhacaya, xasadkana duleel ayuu jirkaaga u sameynaya oo haaladaada duleel u sameynaya. jinniga saas ayuu jirkaaga kusoo galayaa. marka wixii uu sababta u ahayd isha kugu dhacday, xasadka kugu dhacay, arrinta sabab u ahayd, waxaa dhici karta inay shaqo ay tahay oo lagu xasday shaqo darteeda. mise waxaa dhici karta inuu guur dartiis lagu xasday, mise waxaa dhici karta waxbarashada in lagu xasday. marka wixii ayuu shaqadiisu dhinac ka qabanaya isagana, walciyaadu billah. marka waxaad arkaysaa xataa qofka maaragtay in oo qof adiga oo maaragtay sixir kuu sameeyo, qofka saaxirka ayuu tagayaa, wuxuu leeyahay ninkan waxaan rabaa in maaragtay dhinaca irsiqa
in loogu hor istaago marka ninkii saaxirka ahaa jinniyaa la shaqeeya jinniyaashii ayuu kugu soo dirayaa oo sixirkii maaragtay siday ku fulgeliyaan arrintiis ay shaqadii ay ku galaan marka waxaad arkaysaa meel walba adiga maanta irsaqa aad ka raadayso waxaad arkaysaa wax baa ku hortaagan laakiin adiga maaragtay yacni weli wixii arrintii waadax kuma ah marka waxaad arkaysaa jinnigaas muwakkal ayuu noqonayaa asaa muwakkalka noqonaya oo wax waliba maaragtay kaa hor istaagaya marka waxaa dhici kartaa inuu xataa jinni oo ku galin laakiin ishii ay kugu dhacday mise xasadka oo kugu dhacay marka jirkaaga waxay u sameynayaa xaaladaada waxay u sameynaysaa daaqa salbiya wax la yiraahdo waa negative energy yacni qof waliba adiga maanta kusoo ag fariisamid qof waliba maanta adiga aad shaqa aad ka raadiso markaad ag fariisato qofkaasi cariiri ayuu dhinacaaga ka dareemaya adigoo xataa warqadaada iyo waxaaga iyo applicationkaaga waxa asoosan fiirinin ayuu go-aankaa gaaraya waayo laanna il aa kugu dhacday ishaas waxay siinaysaa dabdabaad wax la yiraahdo dabdabaadkaas qofkaasi oo maaragta meesha mas-uulka ah oo shaqada mas-uulka ah waxaa dhici karta isku markii inuu ku dhibsado markaa soo gasho meesha nafrah wax la dhahaya cariiri ayuu dareemaya markaa soo gasho isku markii wuxuu leeyahay ninkaan maaragtay maba ka helinba adigana ma ogtihin waxaa dhici kartaa shaqada inaad si fiican u taqaano waxaa dhici kartaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala cilmi u ku siiyey laakiin qofkaani maadaama adiga il kugu dhacday maadaama adiga xasad kugu dhacay waxaad qof waliba maaragta aa hor fariisato cariiri ayuu dhinacaaga ka dareemaya waxaa dhici karta inay ahayd cayn taraakumiya wax la yiraahdo il a kugu dhacday isha markale kugu dhacday haddana mar kale kugu dhacday waa taraakumiya way badatay mise xasadaa kugu dhacay wuu kugu dhacay haddana mar kale sidaasoo kale wuu batay qof waliba agtaada markuu soo fadhiista cariiri ayuu dareemaya marka meel waliba adiga aad tagto oo isku dayda inaad wax ka samayso aad shaqo raadayso oo irsaq aad qofkii cariiri ayuu dhinaca ka dareemaya xataa sixirka waa sidaasoo kale sixirkana markuu kugu dhaco xaaladaada iyo wixii xaaladaada oo dhan maaragta ayuu waxa u yeelaya asagana taaqa salbiya negative energy ayuu u yeelaya marka qof waliba waa tii aan hadda korna aan ku sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu guriga soo golay ay tiri caaisha radiallahu canha yashacu nuuran sala allahu calayhi wasalam waa tii xataa aan sheegnay qofka marka adiga iimaankiisa uu ziyaado ou noqdo nuur ayaa ka baxaya wejigiis ayaa soo nuuraya laakiin qofka markii taaqa salbiya sayi-aadkiis ay badato oo wixii oo ilaahay subxaana wa tacaala jidkiis oo ka dheeraado waxaad arkaysaa mala fariisan kartid waa dhibsanaysaa qofka mu'minka wuu dhibsanaya qofkaas marka isha markay kugu dhacdo saas oo kale ayay samaynaysaa mise sixir markuu kugu dhaco dadka dhanaa ku dhibsanaya cariiri ayay dhinacaaga ka dareemayaan ma jecla inay agtaada soo fariistaan sixirkan xasadka wuxuu ku darsanayaa xasadkii ishii waxay ku darsanaysaa inuu qofka xataa xanuun uu dareemo يعني calaamooyinka xasadka lagu garto waxaad arkay ishatan lagu garto wax waa garbaha qofka garbaha xanuunayo hurdo la'aana ku dhacayso murug badanaa haysato cuntadiisa ma fiicno madax meel war madax maalin dhinacuu ka xanuunaya qofka xasad ku dhacana korkiis kuleel waa ziyaada xaaqadiisaa badan waxyaalo wasakh ayaa kasoo baxa waa waxyaalaha lagu gartay sixirkan waa madaxa oo dhan ayaa ku xanuunaya marka qofka saa is garan kara ma sixir miyaa mise waa xasad mise waa il marka qofka waa inuu gartaa wixii uu baaritaan uu u galaa marka wax waliba adiga aadad ka minin oo horumar aad ka gaarin dhinaca maaragtay waxbarashada dhinaca irsiqa dhinaca guuritaanka oo guursanaysid qof aad guursanaysid waa inaad isfiirisaa oo isbaartaa waxaa dhici kartaa xasad inuu kugu dhacay waxaa dhici kartaa sixir in lagu sameeyey waxaa dhici kartaa il inay kugu dhacdo intaasoo dhan ayaa maaragtay ayaa iska oo kooban ayaa kugu dhici kara walciyaadu billah waa waxaa la yidhahdaa waa tadmiiri waa adigoo dhanaa lagu baabi'inaya waxaa dhici karta qofka hal sixir in loo sameeyo oo la yidhahda sixir tadmiiri oo qofka oo dhan uu baabi'inaya marka waxaa jira tactiil waxa la yidhaahdo tactiil khaas iyo tactiil caam tactiil khaasa
وهور استاق أو أرن جاركو أديجا يعني waxaa dhici kartaa qof inuu maaragtay oo kugu xasday waxbarashada ku fiicanta dhinacaas xasadka soo raacay waxaad is arkaysaa markaad rabto inaad wax barato madaxaaga uma furno maskaxdaada uma furno madax xanuun ayaa dareemaysaa mis waxaa dhici kartaa qofkaas inuu ishiis ay ahayd dhinaca irsiqa maanta waxaad tijaaro ayaad bilaawaysaa business ayaa bilaawaysaa waxaad arkaysaa wixii oo maaragtay wixii oo dhan oo maaragtay aad ku khasaartay laakiin waxaa jira wax la yiraahdo sixir caynun caam iyo xasadun caam waa wax waliba adiga maaragtay oo adiga ku khuseeyo dhan oo qofkaas kugu xasday mis wax waliba adiga ku khuseeyo dhan maaragtay ayuu ishiis oo kugu ilaystay wax walba dhinac waliba dhinaca guurka dhinaca ilmaha dhinaca irsiqa dhinaca iskuulka mis wax barashadaada waxaad arkaysaa waxaasoo dhan ayuu hal jeer maaragtay kugu xasday marka waxaa la yidhahdaa tan waa caam waa wax guud ah wax waliba ayuu kugu xasday qofkaas marka waxaa dhici kartaa laakiin wax khaas ku ah wax khaas qofka oo kugu xasdi kara waa shay kaliya waa hal kaliya mise sixir inay ku samaysaa dhici kara qof inuu sixir ku sameeyo oo arrintaas gooni adiga arrin gooni ah inuu maaragtay kugu xasdo ama uu sixir kugu sameeyo waxaad arkaysaa qofka maaragtay sixir oo lagu sameeyey oo adiga dhaqankaaga bedelayo iyo sixir aanan dhaqankaaga bedelaynin waxaan ka wadaa hadalkan waxaa dhici kartaa sixirka adiga inuu jirkaaga la geliyo cunto ku cuntid cuntada kugu soo dhex maro mise cabitaan uu noqdo mise aad kor socotid sixir takhati almarshuush mise sixir waxaa dhici kartaa oo hawaa'i in geed lagu xiro oo meel lagu suro marka waxaad qofka markii waxaas loo sameeyo oo sixirkan asalkiis uu ahaa laakiin dhinaca guurka maalan qofkaas wuxuu ayuu iska dareemaya markuu yahay cuntada iyo markuu yahay wax aad adiga cabtay oo jirkaaga uu soo galo mise wax aad kormartay oo lugtaada ay ku dhacday oo jirkaaga soo galay laakiin kan godka ku jira iyo kan badda aad lagu tuuro iyo kan geedka la saaro dabdabaadkiis ayaa adiga kusoo gaaraya kulaalkiis ayaa kusoo gaaraya markii qofka uu isfiiriyo calaamoodin oo sixirka iskuma arkaya xanuun male korkiisa waa caadi laakiin sixiraa loo sameeyey oo meel ku jiro waxaa dhici kartaa in tintiis la qaaday qofkaas mise cijooyinkiis la qaaday mise dhiiggiisii mise wax anything oo asaga ku saabsan in la qaaday oo meel la geliyay oo sixir lagu sameeyey laakiin waxaad dareemaysaa qofkaas inuuba waxba uu dareemaynin xanuun uusan dareemaynin laakiin tactiil ayaa loo sameeyey waxaa laga hor istaagay guurkaa laga hor istaagay waxbarashadaa laga hor istaagi karaa irsiqaa laga hor istaagi karaa ilmo la'aanaa ku dhacaysa qofkaasi marka wax waliba ayaa dhici karta oo qofkaas maalintaas loogu talagal in lagu dhufto marka waxaad arkaysaa yacni qoftii ninaa uu imaanayo gurigu uu imaanayo sixirka meel kale oo ku jiraa laakiin jirkeeda kuma jiro ninka markuusu u yimaado gurigu u yimaado raba gabadha inuu guursado ahalkeeda oo kasoo doonto markuu arko gabadha wejigeeda oo dhanaa si kale u noqonaa wuu bedelna quruxdii dhanaa ka tegayso waxaad arkaysaa ninkiiba maaragtay xoogaar markuu fariisto oo iska dhaqaaqo oo isku markii uu go'aan oo ka gaaro limaada waxa waaye waa haalada adiga kugu saaran waa wax adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey sixirkaas ayay soo jiidanaysaa oo adiga lagugu talagalay marka waxay kuu samaynaysaa weji adiga aadan lahayn quruxdii iyo wixii adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey oo dhan ayaa lagaa qaadaya marka ninka sidii ayuu ku cararaya waxaa dhici kartaa qofka inuu yimaado guriga oo yiraahdo gabadhan aan rabaa inaan guursadan rabaa oo gabadhi maasha Allah markii ittifaaq markii heshiiska u yimaado
waxaad arkaysaa ninkii maaragta maba soo noqonayo mar kale wuu cararaya. marka qoftaasina markaad fiiriso aad weydiiso calaamooyinka sixirka kuma arkayso sida madax xanuunka mise aalam cariiri waxyaalahaas dhan kuma arkayso laana sixirka meel bannaan ayuu yaallaa korkeeda kuma jiro. sixirkaasna waxaa loogu talagalay in guurka looga hor istaago aysan weligeed guursanin. waxaa dhici kartaa sixirka xataa ilbaabka hortiis in loo dhigo gabadhii intaas ayay gaaraysaa 30 jir 40 jir ilbaabka qof soo garaacay male oo gabadha soo doonanayo. waxaa dhici kartaa sixirka inuu ilbaabka hortiisa yaalo oo qofta sidii oo maaragtay loogu diiday in oo maaragtay ay guursato. waxaa arkaysaa qoftaasi xataa waxaa lagu arki karaa marka uu sixirka jirkeeda uu ku jiro yacni markii la soo qaada arrinta guurka way dhibsanaysaa. mise qofka shaqo oo maaragtay shaqada laga hor istaagay mise waxbarashada markii mawduucaasba la soo qaado cariiriyuu dareemayaa, kabaabiyuu dareemayaa, daal ayuu dareemayaa. waa waxyaalaha oo lagu garto qofka maaragtay in sixirka jirkiisa uu ku jiro mise sixirka inuu ku istaagay oo bannaanka uusan yaal oo jirkiisa ku jiro. waa tii aan sheegnay qofka hadduu sixirka oo jirkiisa soo galo calaamooyin ayuu isku arkaya, xanuun ayuu dareemaya. waxaa arkaysaa qofkiina maaragtay markii waxbarashada loogu hor istaago madax xanuun oo dareemaya, concentrationka ayaa ku yaraanaya, wixii oo dhan ma rabo inuu barto waxbarasho dhan mawduuca waxbarasho inuu ka hadlo ma jeclo. qofka irsiq loo sameyne inuu business oo dhan ka hadlo ma rabo, wax shaqo la yiraahdo dhan inuu ka hadlo ma jeclo walciyaadu billah. tii haddan aan sheegnay waa yacni waxaa dhici kartaa qofka haaladiis in ay maaragtay wax gaaray. waa arrimahana ugu sahlan oo qofka oo maaragtay isku markuu iska gaari karo. qofka haaladiis haddii duloolooyin loo yeelo waa wixii oo maaragtay oo weli meel xun uusan gaarin wuu sahlan yahay. laakiin markuu uu maaragtay wixii sixirkii jirkiis uu galo mise ishi jinni uu soo raaco mise xasadkii jinni uu soo raaco oo jinniga jirkiis galo xoogaa yar way adkaanaysaa. marka waxaa fiican qofka markuu uu shaqo uu raadiyo mise guur uu raadiyo mise waxbarashada uu isku arko inuu wax cariiri ka jiro oo laakiin uusan waxba dareemaynin, xanuun uusan lahayn sida calaamooyinka lagu garto isha iyo calaamooyinka xasadka lagu garto iyo calaamooyinka sixirka lagu garto hadduusan isku arkin laakiin mar waliba oo wax oo asaga uu jeclaystay sida shaqada oo kale wax la hor istaagaya. shaqadaan uu aadaya waa la diidaya, shaqo kale uu aadaya, meel kale uu shaqo ka dalbaya waa la diidaya, meel kale. marka qofku waa inuu shakiya ku galaya. marka waa inaa isfiirisaa marka maxaa jiro, waa inaa isbaartaa biidni illahi alkariim. waxaa dhici kartaa xataa maaragtay tactiil alcaa'ila kullaha, familiga oo dhan in loo sameeyo. qof shaqaynayo male, familiga oo dhan qof wax baranayo male. ilmihii iskool waxbarasho ma jeclo, aabihii wax ma soo baranin, ciddii oo dhan waxay yihiin maaragtay upside down. waxaa dhici kartaa ciddaas sixir in loo sameeyey oo sixirkana bannaanka uu iska yaalo. markaa u tagto aad tiraahdo kaaliya soo fariis qur'aan aadin saar wax xanuun iyo wax maaragtay kuma dareemi ee waxa kuma arkaysid, laakiin way sixran yihiin. xataa waxaa dhici kartaa qofka maaragtay in wax waliba uu asaga iska leeyahay inuu jajabo. sixir waxaa jirta al-aaliya allah aaliyat takhriib. yacni qofku waxaa arkaysaa maanta baabuur uu soo gadanaya, baabuurka muddo gaaban waxaad arkaysaa baabuurkii hallaabay. mise wuxuu soo gadanayaa tallaajo fridger oo ayuu soo gadanayaa wixii waa hallaabaya. mise vacuum markana hooverka oo dhulka lagu nadiifiyo ayuu soo gadanayaa isku waqti. wax waliba oo electronic ah uu soo gato waxaad arkaysaa waqti dheer ma gaaraya. waa markii la rabo dhaqaalihiis in dhulka lala galo. arrintaas kaliya sixir loo sameeyaa, dadka loogu sameeyaa. mashiin uu soo gadanayaa waa hallaabaysaa.
baabuur soo gadanaya waa halaabaya guriga waxa TV soo gadana TV-ga waa halaabaya wax waliba uu soo gato electronic uu halaabaya wax badan ma wadaayo waxa dhici karta qofkaas sixir in loo sameeyo oo aaliye ah mise cayn inay ku dhacday ilaa ku dhacday oo waxaas loogu talagalay isha mar waliba waxay ku dhacdaa wuxuu soo gato mise xasad qof xaasid oo xaaqid ah oo kugu dhuftay xasadkiisa oo adiga wax waliba aad soo gadato maaragtay oo halaabaya حتى marka qaarkood waxad yani qofka markii sixir loo sameeyo waa loo soo jideedinaya mar waliba gabadha waxay arkaysaa tinteeda gobol laga gooyo oo gobol wax ka maqan mis iyadoo jiifto hurd iyadoo riyo ayaa cunto lagu siinaya cuntadana sixir ayaa raacsan السحر المنامي iyadoo jiifto maaragtay cuntada loo dhax raacsiinaya haddii laakiin qofka uu isku arko wax xanuun ah wax oo maaragtay madax xanuunaya waxya sixirka adiga ayuu jirkaaga oo ku jiraa sidaan u sheegnay haddaad cariiri dareentid shaqada haddaad cariiri ka dareemaysid guurka haddaad cariiri ka dareemaysid waxbarashada haddaad cariiri ka dareemaysid waa wax adiga jirkaaga ku jiro wax bannaanka yaalla ma ah marka waxyaalaha ugu muhiimsan anaga mar waliba dadka u sheegno waa inuu qofka guriga tahliil ku shubaa tahliil waa inaan ku bilbishaa sidii wixii oo dhan aad u xiri lahayd hadduu wixii adag kugu jiro waad garanaysaa xanuunaad dareemaysaa markaa tahliil aa ku bilbiso guriga hadduu wixii bannaanka yaallo isku markii wuu soo xirmayaa oo adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siinayaa wax oo xaajis ah إلهي protection وكسينايا وحي أديو كم سو جارايا إلهي سبحانه وتعالى باب أيو كوفرايا مركب بقى خوفك مالين كلي إنه تهليل جرو كبل بلو وإنه أسبوع مثلا بأسبوع إنه تهليل أو جرو كبل بلو إن شاء الله معنا أي إذا تصين دونا بإذن الله الكريم سيدا أريمها سلو سميدت بدن مية قانين إن شاء الله درسي أيام سميننا إن شاء الله أن كشرح دون أرنتان وحليل هذا تحسين البيت سيدا جرو qofka maaragtay uu ilaalin lahaa oo wixii sixir ah banaanka jiro dabdabaadkiis sidoo guriga kugu soo gali lahayn hadduu guriga ku dhex jirana maaragtay sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga qaadi lahaa hadduu jirkaaga ku dhex jirana maaragtay soo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga soo bixin lahaa marka waa xaalaha ugu in loo sabro u baahan waa inaad u sabarto waayo markas ووحي تحسين البيت كان وأرمها ومهمسا أنا مركان برجع دتك أو تجنو أقرأ القرآن إن صارنا هرتو مرك وجوه الرئيس برجع أيام رقية صارنا أنت قفك عن القرآن صارن سيدي ما عرفتي بيئة ما عرفتي بيئة نظيفة قفك ولو عالية علاج بالله دبعت وداد هاي ست وحواس الصعود قفتي وجيران أو ما قفتي أيو آذايا gurigiina waxaa dhici karta ilbaab kurtii sixir inuu yaalo inuu guriga dhexdiisa sixir ku jiro dabdabaadkii wixii oo dhan ayaa qofta ku dhacaya wadaadka qur'aankii si fiican uma gaarayo muddo dheer ayuu ka qaadanaysaa wadaadka intaasoo bilooyin ayaa qofkaas ayaa qur'aan saaraya muddo dheer ayay ka qaadanaysaa marka 80% boqolkiiba 80 waxyaalaha oo soo degdejiyo caafimaadka waa taxsiin albayt marka qofka guriga maaragtay oo tahliil oo ku bilbilo oo qur'aan oo ku shido intuusan oo qofka oo qur'aan loo saarin oo guriga la kaliin gareeyo oo dariishadooyinka loo furo oo qofka maaragtay markaas qur'aan loo bilaabo waa inaa qofka horta eeriyadiis waa in la nadiifiyaa intaasaan asagana la gaarin haddaad cariiri iyo wax aad dareento markaad guriga aad ku bilbisho waxaad ogaataa in adiga wax uu kugu jiro jirkaaga uu ku jiro waxaad dhici kartaa inuu sixir ma'kuul uu yahay sixir adiga cuntay mis waxaad dhici kartaa sixir mashmuum wax aad soo urisay mis waxaad dhici kartaa mashruub inuu yahay wax adiga cabtay wax ugu fiican oo aan aragna ilaa iyo hadda oo arintan xalkeeda uu yahay hadduu yahay sixir tactiil sixir hadduu yahay oo adiga lagaaga hor istaago wax shay mis xasad hadduu yahay
oo arrin lagaaga hor istaagay mise il hadday tahay qiyaamuleyl wax dhaama ma leh qiyaamuleyl wax dhaama ma leh walaalayaal marka qofka xataa habeen kasta haddaadan kici karin habeen u dhaaf habeen soo kac habeen jiifo habeen soo kac laakiin isku daba xiji qiyaamuleyl irsiqay keentaa walaalayaal qofku waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala markuu ilaahay subxaana wa tacaala yanzil ila samaa addunya hal min mustakfirin fa akfira lah oo ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiis weydiinaya oo dhahay yaa u dambi dhaafa markaas haddaad ilaahay subxaana wa tacaala hor istaagtid oo aad baridid ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha oo dhan ku haysta ayuu kaa qaadaya waxyaalaha kale dadka aan u sheegno waxa waaye yaasiin inay dhegeystaan wasaafaat waa waxyaalaha oo maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu furaayo marka qofku waxaa fiican inuu yaasiin dhagaha uu gashto qur'aanka dhagaha uu gashto kitaabka qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo qaato sheekha uu maqlo isku markii oo la socdo sheekha meesha uu akhrinayo kitaabka waa inuu la qaataa waxaana fiican inuu hal bakeeri mise 3 bakeeri oo biyo ah hal litir oo biyo ah inuu tahliil faatixada iyo macuudadeynka uu ku soo akhristo oo soo ag dhigto intuu qur'aanka u dhageysanayo oo maqlaayo oo sheekha raacaya inuu biyaha cabo waa waxyaalaha sixir hadduu ku jiro calooshaada ilaahay subxaana wa tacaala wuu kaa soo saaraya laakiin waxaa loo baahan yahay waa wax joogta inuu ahaada ma aha hal beri iyo 2 beri aad samaynaysa may waa waqtiyada ugu fiican waa bacda salaati alfajr markuu qofka salaati alfajr uu soo dugto ayaa waqtiyada ugu fiican qofka uu fariisto oo dhegta qur'aanka oo gashto oo ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay qalbigiis furo oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala uu dhageysto waxaana kasii fiican qofka hadduu waqti haayo inuu albaqara hal fadhi uu ku dhammeeyo sida hadda aan sheegayna oo kale kitaabka oo soo qaato qur'aanka dhegta oo gashto hal litir biyo oo soo ag dhigto oo tahliil ah oo markaa qur'aanka soo dhageysanayo oo isla markii biyaha oo tahliil ka cabay maasha allah qur'aanka intuu ka galaya qalbigu ka galaya calooshu ka galaya tahliisha calooshii ka galaysa maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala nuurka ilaahay subxaana wa tacaala waa dareemaysaa marka waxyaalaha hadda dadka ummadda waxyaalaha badana oo loo sameeyo irsiqa laga hor istaagaya qofka mis waxbarashadiisa laga hor istaagaya mis waxaad arkaysaa guurka ayaa qofta laga hor istaagaya mis waxyaalaha mumtalakaadkiis wax asaga ilaahay subxaana wa tacaala siiyey ayaa kharaab lagu sameynaya la baabi'inaya marka insha allah darsigeena caawa saano intaanu kusoo dhammaaday marka qofku wuxuu fiican mar walba inuu isbaaro oo isfiiriyo maxaa aniga iga hadlaysan dhinaca irsiq hadduu wax dhibaato kaa jiro waa inaa isbaartaa oo isfiirisaa marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala kelmadan gaaban inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajr iyo xasanaad naga siiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala dunuubteena maaragtay naga baabi'iyo oo yubadil sayi'aatina xasanaat inuu ilaahay subxaana wa tacaala qabrigeena noo nuuriyo oo ilaahay subxaana wa tacaala yactiina alkitaaba في اليمين إن شاء الله إنه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كينا قعنت أملك تنوسيه وإلهي سبحانه وتعالى أننا يجمعنا على الخير دائما وأبدا إن دائما خير كان يمارك بركة أو دائما أنكو كلنا وإلهي سبحانه وتعالى وحنا أسمينه يكون خالصا لوجهه الكريم إنه إلهي درتي سبحانه وتعالى أو نبضه مركا هذا الكي وحنا صور قبينيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.